saldhigga dhexe magaalada Boorama waxaa maanta ka dhacay kulan loogu arinsanaya siideenta caruur kooxo ah oo maalmihii ugu dambeeyay ku dagaalamayay magaaladan Boorama kuwaasoo ay soo qabteen ciidamada booliska ee magaalada Boorama kuna xireen saldhigga dhexe ee Boorama. kulankan oo ay ka soo qayb galeen gudoomiyaha gobolka Awdal, taliyaasha ciidamada kala duwan ee gobolka, madax ka tirsan dawladda cusub ee Somaliland, culumaaddin, salaadiin iyo waalidiinta caruurta dhashay ayaa waxa uu ka dhacay saldhigga dhexe ee Boorama. ugu horeen waxaa ka hadlay kulankan gudoomiyaha gobolka Awdal Maxamed Daahir Cabdalle, wuxuuna sheegay inay ka go'an tahay sugidda ammaanka guud ee gobolka, gaar ahaan caasimadda gobolka ee magaaladan Boorama, wuxuuna ugu digay caruurta inay ammaan daro ka abuuraan Boorama kuna dagaalamaan iyagoo u kala baxaya kooxo. wuxuuna sheegay in mid walba oo ka mid ah caruurtan ay xireen oo ay maanta sii daynayaan. waxa uuna sheegay in la sawiri doono kadibna lagu keedin doono kombiyuutarka si haddii uu u baxsado dowladaha jaarka la ah Somaliland ay u soo qabtaan kadibna dib loogu soo celiyo magaalada Boorama. maanta waxaan sameeynaa record baan sameeynaa, qof walba sawir baan ka qaadaynaa, kombiyuutarkan ka sameeynaa. hadduu tago wadamada jaarka nahay uu xisaab baxsado waa soo qaban, hadduu xisaab baxsado waxba ku daymayna. maanta anagu muxuu ahaayeen xarig iyo ku day tijaabiya idinka nafta tijaabiya daa la yidhaha. kuwa kale yimaadana waa la gelin muxuu ahaa kombiyuutarka sawirkaasi maaha ku wax u dhimeeya inankaa muxuu ahaa dhoof hadduu doonayo hadduu wax kala doonayo, laakiin markuu halkan dembi ka galo ee uu Jabuuti galo, wada shaqayntii Jabuuti lalahaanbaa kaanbaa lagu raadin. sidoo kale waxaa goobtan ka hadlay taliya ku-xigeenka qaybta ahna madaxa howlgelinta ciidamada Cawil Abiib, wuxuuna sheegay in shacabka mar walba ay waxyeelo gaarto u yimaadaan booliska, balse marka la xiro iyaga oo sameeyay dembiyo ay booliska ka sii dacwoodaan. wuxuuna sheegay inaysan u dulqaadanayn cid walba oo isku dayda inay ammaan daro ka abuurta Boorama iyo guud ahaan gobolka Awdal. ku arkaysaan way namadaydu ku hadasheen inta in leeg oo aan dembi ku jirin waan la soo qabanay. habasay ahaato aan la soo qabanno waan kala saarnay anagu leeskii bilays ahaan qofkii dembi ku jiray iyo qofkaan ku jirin. inta iyaga halkaa fadhidan iyagaan weydiinanoo shakhsi u weydiinanay oo hebel ma ku jira kayma idhaahdaan halkaasaan u saarayna. waalidiin ahaanna dee nin waliba masaajid buu ku jiray inankiisu iyo bareefad buu ka yimid. bilayskuna waa mar lagu soo dacwoodo iyo mar laga dacwoodo dee, oo imika haddii lagu dakro bilayskaadu imani dee, laakiin marka adiga qof lagaa xidho bilayskaa eedaysanaa dadkii la shaqayn lahaana waa idinka dee, waa waalidiinta dee. si kastaba arrintu ha ahaatee habeenadii ugu dambeeyay waxaa laga dareemayay gudaha magaaladan Boorama ee caasimadda gobolka Awdal dhaqdhaqaaq ciidan oo ay wadeen ciidamada booliska ee magaalada Boorama, kuwaasoo qabqabanaya dhalinyaro ku dhaqan magaaladan oo kooxo noqday kuwaasoo ku dagaalamaya gudaha magaaladan Boorama. Cabdifitaax Axmed, Somali Channel, caasimadda gobolka Awdal, magaalada Boorama.